daawade ku soo dhawow barnaamij yar oo ku saabsan jasiiradii Kaneecada Badneed iyo sida ay ku noqotay dunida koowaad. Sidee ayay jasiiradii Kaneecada Badneed oo ay Malaysia iska ceerisay oo xitaa ka saartay midowgoodii ku noqotay dal ka mid ah dunida koowaad. Kulanti wacan daawade ku soo dhawow janaalka naga wada dhaxeeyo ee Kulmis Media. Waan kaaga mahadcelinayaa daawashadaada, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa alla ku sokow qof walba oo muuqaalkan daawanayo iyo inta sida hagar la'aanta ay dhiirigeliso. Waxaan idin leeyahay aad ay u mahadsantihiin dhammaantiin. Inteenan barnaamijka gelin waxaan ku xasuusinayaa in aad subscribe dhahdo janaalkaaga. Kaasanu bogaaniga waa kuwa badangala jasiiradii Kaneecada Badneed laguna tirin jiray dunida saddexaad oo muddo kooban ku noqotay wax kale. Sidee ayay jasiiradii Kaneecada Badneed oo ay Malaysia iska ceerisay oo xitaa ka saartay midowgoodii ku noqotay dal ka mid ah dunida koowaad. Yaase dhabaha guusha qaasiyay, maxaanse ka baran karnaa haddaan nahay Soomaali. Singapore waa dal yar oo hal magaalo ah, city state, kaasoo ah jasiirad yar oo dhacda koonfur bari Asia. Waa dal baaxad ahaan aad u yar oo ku fadhiya biddan 722 kiiloomitir oo isku wareeg ah. Magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania ayaa baaxad ahaan ka weyn. Singapore waa jasiirad kaabiga ku haysa Malaysia. Dadka waddanka dega waxay kala yihiin Chinese, Malay iyo Hindi. Markii ay Britain ka xoroobeen ayay go'aansadeen inay la midoobaan walaalahood Malaysia oo ay u arkeen dal ay isku dad yihiin. Sanadii 1963 ayay la midoobeen Malaysia iyagoo noqday dal qura, balse nasiib darro 2 sano kadib Malaysia baarlamaankeeda ayaa u codeeyay in Singapore ay ka go'do Malaysia ayna ka baxdo, iyaga oo sheegay inay tahay jasiirad yar oo kaneeco badan, dad saboolna ku nool yihiin, taasoo aan faa'iido ugu jirin Malaysia. Xilligaas Singapore waxay u ahayd waqtigii ugu xumaa. Waxaa ceeray dad kubii ugu dhawaa. Lee Kuan Yew ayaa ahaa ra'iisul wasaaraha dalka waagaas. Waxa uuna u tafaxaytay sidii uu Singapore uga saari lahaa duruufta adag ugana mid dhigi lahaa wadamada ugu hodansan dunida. Lee muddo badan ayuu arrinkaas ku mashquulsanaa, dalkana kama uusan bixin. Waxa ay taariikhdu xustaa inuu socdaalkiisii ugu horreeyay oo dibadda ah sameeyay sanadii 1973, muddo 8 sano ahna dalka kama bixin. Lee sanadii 1990 ayuu xilka ka degay isagoo loo aqoonsaday aabihii waddanka. Waxa uuna sababay Singapore inay noqoto maanta xarun caalami ah oo ay hoy u ah waxbarashada, madadaalada, dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka, raasimaalka, hal-abuurka saadka, wax soo saarka tiknoolajiyadda, dalxiiska, ganacsiga iyo gaadiidkaba. Waddanku waxa uu ku jiraa heerarka caalamiga ah. Waxaa loo aqoonsaday inay tahay Singapore dal haysata tiknoolajiyadda ugu sarreysa, taasoo mar walba diyaar ah. Waa dal ay ku kulmaan hay'adaha iyo shirkadaha ugu waaweyn ayna ka dhacaan shirarka caalamiga ah. Waa dadka leh maalgelinta ugu wanaagsan dunida. Singapore waa dal aad u qurux badan, sidoo kale waa dalka ugu ammaansan dunida. Waa dal leh dhaqaalaha ugu furfuran caalamka, dal kaalinta saddexaad kaga jira wadamada ugu musuqmaasuqa yar caalamka, dal uu ku yaalo suuqa sarifka ee saddexaad ee caalamka ugu weyn. Dalku wax kheyraad ah ma leh oo xitaa ma laha dhul beereed ay wax ku beertaan. Qudaarta laga isticmaalo oo idil waa mid dibadda kaga timaada. Sidoo kale ciidda wax lagu dhisto xitaa dibadda ayay ka keensadaan. Sidaas oo ay tahana waa dhul cagaar ah ayna ku yaalaan daaraha ugu dhaadheer uguna qurxoon caalamka. Sidoo kale waa xarunta saddexaad ee ganacsiga dunida, xarunta saddexaad ee dunida shidaalka laguna nadiifiyo, dalka shanaad ee ugu hal-abuurka sareeya caalamka, sidoo kalena leh dekedda labaad ee ugu mashquulka badan dunida. Sidoo kale Singapore waa magaalada ugu nolosha qaalisan dunida, taas oo muddo badan soo ahayd. Dekedda Singapore waxaa lagu tilmaamaa inay tahay hormuudka dekedaha caalamka. Sidoo kale garoonka diyaaradaha ee Changi Singapore waa kan ugu mashquulka badan caalamka. Diyaaradaha Singapore Airlines waa diyaaradaha ugu wanaagsan caalamka, iyadoo sanadkii hore loo doortay inay tahay tan caalamka ugu wanaagsan. Heerka horumarka aadanaha Singapore waa dalka 9aad ee caalamka ugu horeeya. Waddanku waa dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. Dhaqaalaha dalku waxa uu kor u dhaafayaa 370 bilyan, kaasoo ka mid ah 30 dal ee ugu horeeya dunida. Sidoo kale dalku waa kan saddexaad ee ugu hodansan dunida. Dakhli sanadeedka soo gala dadka Singabuuriga ah waa 98,000 sanadkii. Waa dal aad ugu horumaray hanaanka waxbarashada. Jaamacadda Singapore waa tan ugu wanaagsan guud ahaan Asia. Sidoo kale daryeelka caafimaadka ayaa aad u wanaagsan.
Dadka reer Singapore waxaa lagu tilmaamaa in cimrigooda uu gaaro ilaa 80 sano celcelis ahaan. Wadanka Singapore waxaa ku nool 5.7 milyan oo qof. 93% dadkaas waa ajaanib dalka degan oo ka shaqeysta. 4 luqadood oo rasmi ah ayaa looga hadlaa, kuwaasoo kala ah Ingiriiska, Malayga, Mandarinka iyo Tamilka. Wadankii la ceeriyay ee kaneecada iyo faqriga hoyga u ahaa maanta waa mid hormuud u ah dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, aqoonta iyo hal-abuurka dunida. Waxaa heerkaas gaarsiiyay nin loo arko inuu ahaa hogaamiyihii ugu wanaagsanaa qarnigii 20aad, waana Lee Kuan Yew. Singapore waa tusaalaha dal walba oo xaaladiisa kasoo bilaabatay meel liidata, waana tusaale dunida eegato. Haddii aan Soomaali nahay, waa tusaale aad u wanaagsan oo ay waajib nagu tahay casharna ka baran karno kuna dayano, laakiin ma nihin kuwa u soo jeeda inay dalkooda dhistaan. Daawadayaasha qiimaha qaayaha leh, halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tan iyo muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Amaano Allah.